daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey gudoomiye gobolka hiiraan oo sheegay in maanta soo weerareen ciidamo daabacsan madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa waxa uu yidhi si dirqiyaan kaga baxsaday isla markaasina kadib markii xilkii laga qaaday gudoomiyaha gobolka hiiraan oo diiday ka madax adeegay ayaa waxaa la leeyahay maanta waxaa shir jira cid qabtay gudoomiyaha cusub isla markaasina aan xilka la wareegin sidaasina oo ku la wareegay saraakiishii iyo maamulka qaarkood ayuu shir u qabtay si kastaba ahaatee gudoomiyaha oo shir jira cid qabtay kii xilka laga qaaday oo ilaa iminka xafiiska qaybihiis kamid a jooga ayaa waxa uu sheegay in weerar xooggan lagu soo qaaday gudoomiyaha gobolka hiiraan ee dhowaan xilka laga qaaday oo xilka qaadis lagu sameeyay cali maxamed caraale ayaa sheegay in maanta ay weerareen ama weerar kusoo qaadeen ciidamo ka daabacsan madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare isla markaasina sheegay arrintaas inay tahay wax laga xumaado shir jaraa'id uu warbaahinta u qabtay magaalada beledweyne ayuu ku sheegay in saaki ay weerar kusoo qaadeen ciidamada madaxweyne waare isla markaasina wixii dhibaato ah ee ka dhasha uu mas-uul ka yahay madaxweynaha iminka talada haya ee maxamed cabdi waare ee maamulka hirshabelle madaxda dowladda federaalk soomaaliya ayuu ugu baaqay gudoomiyihii xilka laga qaaday 48 saacadood gudahood in ay kusoo farageliyaan xaaladda cakiran ee ka taagan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan hadalka gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli maanta xarunta maamulkaasi oo kula qaatay gudoomiyaha cusub oo kulan kula qaatay gudoomiyaha cusub ee xilka aan la wareegin mas-uuliyiin kale ee ka tirsan maamulka si kastaba ahaatee gudoomiyaha diidan iminka ee maanta la sheegay in lasoo weeraray ayaa waxa uu cuskanayaa qodob sheegaya in dowladda maamulka hirshabelle markay 6 bil ay ka harsan tahay ee maamulkaasi ama madaxweynaha uu xilna magacaabi karin xilna uu qaadi karin taasi ayuu ilaa iminka ku dhagan yahay gudoomiyaha ayaa sheegay in ilaa iminka uu yahay gudoomiyaha rasmiga ah isla markaasina xilka aansan laga qaadin si kastaba ahaatee gudoomiyaha la doortay ayaa maanta shir jaraa'id qabtay asigoona xilka aan la wareegin halkaasi oo kula shiray saraakiisha amniga iyo maamulka qaybihiis kale si kastaba ha ahaatee xiisadan cakiran ayaa waxaa xal loogu la'yahay maamulka hirshabelle isla markaasina dadka qaarkood ayaa dhahaya in dowladda ama wasiirka arrimaha gudaha ee federaalk soomaaliya waa inuu soo farageliyaa xiisadani dhinaca kale somalilan oo shaacisay natiijada dad kale oo looga shakisan yahay cudurka caabuqa 19 xukuumadda somalilan ayaa shaacisay natiijo ka soo baxday dad loogu shakisan yahay cudurka caabuqa 19 oo dhowaan loo diray dheecaanadooda dalka dibadiisa kuwaas oo qaarkood ay ku kulmeen dad laga helay cudurkaasi gudaha somalilan maamulka somalilan ayaa sheegtay in dhammaan dadkii ay direen dheecaanadoodii ay ka badqabaan cudurkaasi qaar dadkii la kulmayne labadii qof ee deegaanadeeda laga helay cudurkaasi oo ay dhowaan shaacisay xukuumadda muuse biixi cabdi maxamed cabdi heergeeye agaasimaha wasaaradda caafimaadka somalilan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in aysan somalilan ka jirin kiisas cusub oo cudurka caabuqa 19 marka laga reebo labadii kiis ee ay horay u sheecisay agaasima hergeeye ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in gudaha somalilan laga hirgeliyey goobo loogu talagalay in lagu tacaalo cudurkani caabuqa 19 kuwaas oo ka furan dhammaan gobolada ay maamulaan sida ay u sheegay agaasimuhu maxamed hergeeye ayaa waxa uu ka warbixiyey xaaladda labadii qof ee hore loogu helay cudurkani caabuqa 19 isagoona xaqiijiyey in xaaladooda caafimaad ay wanaagsan tahay oo uusan si xun u soo ridan cudurkani isla markaasina ay ahayn dad oo sakaraad ah xukuumadda somalilan ee muuse biixi cabdi ayaa iyadu wada dadaalo ay ku doonayso inuusan cudurkani si weyn ugu faafin deegaanada ay maamusha somalilan iyadoona soo saartay go'aamo kala duwan oo looga hortagayo cudurka caabuqa 19 ee dunida ku faafay isla markaasina shalay oo keliya dalkaasi faransiiska ku dilay 1300 oo qofood halka maraykanka Spain iyo Itaaliya ay ayagana aad u dhamaadeen dhinaca kale safaaradda maraykanka oo difaacday wariye Harun Macruuf canaan culus u jeedisay hay'adda nisa uu hogaamiyo Fahad Yaasiin taasi ayaa dhabarjab ku ah hay'adda nisa isla markaasina baraha bulshada ku sheegtay in Harun Macruuf oo qalqal ku yahay amniga dalka qoraal ka soo baxay safaaradda maraykanka ee Soomaaliya ayaa lagu difaacay wariye Harun Macruuf oo uu shaqeeyo laanta afka Soomaaliga ee VOA oo dhowaan eedeysay hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee qaranka ee marka magaceeda loo soo gaabay loo yaqaan nisa Harun Macruuf ayaa wariye xirfad leh oo la ixtiraamo una shaqeeya VOA News wuxuuna ka mid yahay waxayna dhaheen wuxuuna ka mid yahay saxafiyiinta ugu saameynta badan Soomaaliya weerarkii nisa wuxuu halis ku gelinayaa xurriyadda saxaafadda iyo madax bannaanida warbaahinta oo saas u ah dimuqraadiyadda iyo asaas u ah dimuqraadiyadda iyo dawlad la saaxiibtinimo Soomaaliya
ayaa lagu yiri qoraalka safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya. hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ee sirdoonka qaranka ee NISA ayaa dhowaan wariye Haaruun Macruuf ku tilmaamtay inuu halis ku yahay amniga qaranka dalka Soomaaliya. eedeynta NISA u jeedisay wariye Haaruun Macruuf oo ilaa hadda aan la ogeyn waxa ay salka ay ku hayso ayaa baraha bulshada ka dhalisay dood aad u weyn isla markaasina laga falceliyay. si kastaba ha ahaatee Mareykanka ayaa iminka waxa ay taagan yihiin Haaruun Macruuf waa nin halgama ah isla markaasina xirfad aad u sareysa ku leh warbaahinta Soomaaliya, taasina ay tahay in ay xurmeeyaan hadalka wariyaha isla markaasina ayna caburi karin. si kastaba ha ahaatee taasi ayaa dhabarjab ay ku noqonaysaa maamulka NISA oo hogaamiyo Fahad Yaasiin isla markaasina ugu dul leeyahay in wariye kaste uusan dowladda waxba ka sheegi karin. dhinaca kale madaxweynaha Galmudug oo la kulmay odayaasha dhaqanka Xeraale hal arin oo loo soo jeediyay Qorqor. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor ayaa sheegay ayaa deegaanada Xeraale iyo gobolka Galguduud kula kulmay odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. madaxweynaha Qorqor ayaa lacago samar ah madaxweyne Qorqor ayaa lacago samarsiin ah ku wareejiyay dadkooda dhibta ku gaartay dagaaladii ka dhacay deegaanada Huurshe iyo Xeraale. lacagahaasi oo horey oo ballan qaaday dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo hore ugu ballan qaaday. madaxweynaha Galmudug intuu jooga Xeraale wuxuu booqday saldhigga booliiska degmada Xeraale iyo xarumo kale oo aad u fara badan. ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa dhagax dhigay isbitaalka guud ee degmadaasi Xeraale iyo iskuul dugsi sare ah oo maamulka Galmudug ka dhisi doona degmada Xeraale isla markaasina loogu talagalay in shacabka halkaasi degan ay wax ku bartaan. si kastaba ha ahaatee beelay hadda ka hor halkaasi ku diriiray ayaa ra'iisul wasaare Kheyr u ballan qaaday lacago fara badan isla markaasina lacagihii ayuu iminka u geeyay madaxweyne Qorqor taasi oo lagu raali gelinayo odayaashii halkaasi markii hore lagu heshiisiyay.